السلام عليكم walaalaha qaaliga ah dhammaan inta ku xiran dhanka cuntada waan islaamay abaayooyin aad u fara badan ayaa dhanka TikTok waxay iga soo weydiiyeen abaayo maadaama qalaba aan tusinaysid oo lagu track gareynayo ovulation ama waqtiga ogxanta ay soo dhacayso sidee anaka ku ogaan karnaa aan haysanin qalabkaas ama calendar-daas aan fahansaneen seen ku garan karnaa waqtigeena anaka ogxanta ee diyaar abaayo way basiid saa ku ogaan kartid waqtiga ogxantaada ee diyaar ee tahay calaamadooyin badan ayaa jiraan aad ku ogaan kartid hadaa qalabka aad haysanin koo waxaad ku ogaan kartaa maalinta ogxantaada ay soo degayso inuu jirkaada kuleel badan aad ka dareemi kartid waxaa kaloo dareemi kartaa qoyaan aad u fara badan qoyaankaas uu yahay nooc oo xabka ukunta u eg oo kala jijiitmanayo naaso oo xanuunka dareemaysid wacda hoose oo aad ku xanuunayso dhanka midigta aad u malaynayso waran inuu kaaga suran yahay intaasoo dhan ayaad isku arkaysaa hadda waxaan u gudbaynaa qaybta sida ku xisaabin lahayd waqtiga dhiigaada iyo waqtiga ogxantaada ee diyaar noqonayso waxaan rabaa inaan matalaad yar aan ii sheego yacni saa ku xisaabin lahaydeen waxaan kasoo qaadaynaa abaayo uu ku dhacay dhiiga 17 markay ahayd December okay dhiiga labaad wuxuu ku dhacay markay ahayd 15 January waxaa ka bilaabaysaa maalinta kowga uu dhiiga kugu dhaco marka abaayadan 17 December ayuu ku dhacay maaho marka maalintaas ay kow u tahay bisha dambe wuxuu ku dhacay 15 January 15 January waad xisaabinaysaa marka inta u dhaxayso 17 December ilaa 15 oo January inta u dhaxaysa ayaa xisaabinaysaa marka abaayada waqtiga u dhaxayso waxay ahayd 29 bari marka 29 bari ay haysataa inta u dhaxayso caadada waxaan sameynaynaa 29 ka waxaan ka jaraynaa 14 waxaa meesha ku haysataa 15 marka abaayada ogxanteeda waxay diyaar tahay maalintii 15aad ayay diyaar tahay marka abaayada waxaa laga rabaa inay samafal ay sameeyaan iyadoo odaygeeda maalinta 15aad intii la gaarin 5 bari ka hor ayaa loo baahan yahay inay wala kulan ay sameeyaan iyadoo xaajigeeda waliba maalinta 14aad especially iyo hal maalin oo ka dambeeya maalinta oo ogxanteeda ay soo degayso midka labaad aan isiinay waxay tahay abaayada caadada u dhaxayso 21 bari hadaa tahay abaayada caadada 11 bari u dhaxayso waxaa dhahaysaa 11 bari ka jar 14 waxaa ku soo hartay 7 maalinta 7aad ee ogxantaada la soo daynaya ama ukuntaada la soo daynaya marka waxaa sameynaysaa inaa odaygaada aad u dhawaatid weeyaan maalimahaas example kale aan isiinay waa abaayo oo dhiigeeda u dhaxay 28 bari sida camal ayaa sameynaysaa 28 bari waxaa dhahaysaa ka jar 14 marka waxaad haysataa 14 ayaa ku soo haraysa marka abaayada ogxanteeda waxay soo degaysaa maalinta 14aad marka saddexda example ayaan isiiyay maanta cashirkeena intaas ay nagu eg ha iloobina inaad sheegraysin sifa muuqaalka dad badan u gaaro like-gana waxay naga caawinaysaa muuqaalkeena dad badan arko waa ku mahadsantihiin daawashadiina isku soo noqosho labaad